dagaalamaya ciidanka Puntland ayaa cagta u saaray nimanka la yiraahdo Daesh waxay galeen beeraha iyo buuraha waa looga dabagalay dagaalka aad ay u socdo wana sii xoogeysanaya waxayna leeyihiin ciidamada Puntland horumar weyn ay sameeyeen maalin walba 3 deegaan oo cusub laga qabsadaa dagaalka waxa ku soo biiray ciidamada BSF iyo BMPF ay ku soo biiray marka hore daraawiishta maxaa la yiraahdaa Puntland ay iska celin waayeen oo 10 u dhigay nimanka la yiraahdo Daesh laakiin hadda waxa ku soo biiray ciidamada ugu tababarka fiican Puntland oo markaasi BMPF iyo BSF ay kamid yihiin taas marka waxay muujinaysaa nimankan in aan loo kala hari doonin la soo tirtiri doono meel kasta ay galaan laga dabagali doono dagaalku wuu sii xoogeystay ma soo gudbi doonaa waana falanqeyn doonaa waxaan kaloo soo gudbi doonaa magaalada Ceerigaabo oo iyadana xiisad ay ka taagan tahay ciidamada SC Khaatumo oo usii gurguuranaya magaalada sida u gali lahaayeen maalmihii lasoo dhaafay propaganda waxyaabo fara badan ka socday magaalada iyo lama soo geli karo laakiin hadda ciidamada SC maalinta ka dambeysay deegaan hor la sii qabsanayo waxaana laga yaabaa inuu Ceerigaabo dagaal ka dhaco oo soo gudbi doonaa waxaan kaloo soo qaadan doonaa gudaha markaasi dowlad deegaanka Soomaalida oo iyadana xiisad ay ka taagan tahay dhanka iyo dacwaalay xiisadii inkastoo wada hadal oo bilowdo wada hadal u socdo haddana xiisad ay dhan kala jirto iyadana soo qaadan doona barnaamij shirgale meel fogna gaarsiiyay waxaan ku hormarinaynaa Puntland ciidamadeeda noocyada kala duwan 10 ay u dhigeen nimanka 10 lama ilaabaan ay Daesh u dhigeen Daesh hadda jihad u soo doonteen Soomaaliya waxba kama faa'iidin wax badan oo ku noolay laakiin 10 iyo dhowr sano ay ku noolay ee iska dhuuqayeen canshuurta shacabka dhuuqayeen wax walba sameeysanayeen laakiin hadda waxaas ma jiraan dhagta laga naaray dhagta meedadkooda meelaha waran ayuu garar waaweyn teeda kale waxaa la yaab ah dadka meeshaas ka buuxo 4,000 iyo 5,000 gaaray iyo u badan yihiin mataqaana Soomaali uma badan Soomaali waxay ka tahay minority waxa ugu yar waa Soomaali dadka meesha jooga waa Carab noocyada kala duwan iyo nimanka reer Ethiopian Oromo u badan waxa meesha ka buuxo lacagaha ku dhuuqay iska baashaalay dadka dhigooda cabay oo reer Puntland kana sawaayeen waa Ethiopian waa Tanzanian waa maxaa la yiraahdaa nimanka la dhaho ishagan Yemen Saudiyan maxaa la dhahaa gudaha maxaa la yiraahdaa ayadana ishag Uganda meel aysan iska kala Mombasa meel aysan ka imaan ma jirto nimankaas markaas lagu leeyahay jihadan wuxuu aadna Soomaaliya jihadu ma aadina lacag iyo dhaqaale u aaday laakiin waa laga jaasay xabad saas ugu socota dhag ciidanka Puntland hambalyan u direena meel walba ay joogaan waa geesiyaal naftooda u horay inay nimankaas ka xoreeyaan Puntland meeshaas ka xoreynta Puntland kaliya nabad kuma qabtee waxa nabad ku qabto Soomaaliya nabad ku qabtay nimankaas laga xoreeyo meeshaas qaarna badda galaan qaarna la soo qabto qaarna la laayo farxad umad Soomaaliyeed inay u tahay Puntland taageero garab oo waxay u baahan tahay hiil iyo hoole oo waliba saanad military ila la garab istaago ciidan ayaga ku filan ciidan way haystaan way ka adeegayeen nimankaas meel iska saarayaan laakiin saanada military ay kala go'in dowladda federaalka ahaleed hadii galmudug ahaleed hadii SC ahaleed dhamaan maamulada ku xeeran oo dhan hasiyaano maxaa la yiraahdaa saanad military oo joogto ah Puntland si ay nimankaas soo afjiraan Said Abdullahi Dan ugu hambaleynana guusha nimankaas uu ka gaaray haddana halkaa ka sii wada leena waxaan u gudbaynaa dhanka ay maxaa la yiraahdaa Ceerigaabo xiisada ka taagan SC Khaatumo inkastoo khilaaf dhexdooda oo jiro haddana ciidamada SC waa hawshooda wataan waxay leeyihiin waxaan qabanaynaa magaalada Ceerigaabo siyaasad ahaan waa la isku haystaa oo gudaha SC Khaatumo waxa ka jirto khilaaf siyaasadeed jiro oo dastuurka hal dhameystirayo lama dhameystirayo iyo Puntland laga baxay lagama baxay waxyaabo far badan isku dhinac socdo horena waan kugu soo gudbin laakiin waxa barbar socdo dagaal oo SC Khaatumo ay ku qaadayso jida hore dagaal gaar ahaan magaalada Ceerigaabo maalmo la soo dhaafay propaganda badan ka socday sixir baana loo keenay halkaana caana lagu daadiyay islaana oo huwana noo soo gudubtay waxbay saan nagu sameysay waxaas ay dhahan maalmo la soo dhaafay ciidanka Soomaaliya halkaas ku soo laakiin SC Khaatumo jawaab waxay uga bixisay inay deegaano hor la ay qabsadaan ay u dhawaadaan magaalada Ceerigaabo wax hadda 25 kilomitir ka magaalada Ceerigaabo u jiraan marka xalku ma sahlano halkaas asagana dagaal ka soo oo maxaa la yiraahdaa muuqdo haddaan waxba isbedelin oo nabad aan raadin oo dadkaasi laga hortagin dhibaato aydan halkaas ka socoto xalku marka ma sahlano maamulka Soomaaliyeed maalintii dhayso Puntland ka hadlaysa arkay waxay tiraahdaa kuwa ka dagaalamaya Calmisgaad maxaa la yiraahdaa Daesh ah iyo kuwa ka dagaalamaya Ceerigaabo iyo shanta geed waa isku mid ay tiri waxay ula jeedaa ciidanka Soomaaliland marka baasho marka la isku dhacsan yahay oo siyaasad ama wax la isku hayo ama deegaan ee dadku qolada kala argaxiso ku tilmaantaa Soomaaliland waxay leedahay qolada la dagaalamayso waa huwan iyo argaxiso SC Khaatumo waxay leeyihiin SNM oo argixisana la dagaalayso Puntland waxay leedahay argixisana la dagaalayso dowladda Soomaaliya waxay leedahay argixisana la dagaalayso qolooyin kale waxay leeyihiin qolo ridana la dagaalayso Soomaalida marka waxay isku adeegsanaysaa erey la yaab leh Mustafa Cagdir wuxuu leeyahay argixisana la dagaalayso kasoo tilaabtay xadka dowladda deegaanka marka qolada SSN hadda waxay noqotay in argaxiso isku tilmaamaan labadaba si marka u fiirisid hadda Soomaaliland iyo SSC
wax argagixisaa labada dhinac kama socdaan mana ku jiraan laakiin qabiil ahaan iyo siyaasad ahaan iyo deegaan ahaan la isku hayaa haddana ereyada la isku adeegsana waa argagixiso waxaan dhihi lahaa marka si marka loo fiiriyo ereyga argagixiso waa sax qof walba qori ridaayo ee dad dilaya waa argagixiye ama shabaab ha ahaado ama shacab ha ahaado qor qaatay ama ciidan ha ahaado ama meesha raba ahaado qof kastoo qori wato ee wax dilaya argagixiye waa taas waa in la ogaadaa meesha raba ha kasoo jeedo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay qalbigiina isku fura dhibaatada iska daaya adduunku meel dagaal ka socda joogtaa ma jirto qasa lagu heshiiyey oo maanta Israa'iil iyo Falastiin ay gacmaha qabsadeen maxalla meel kasta xabad ka socoto waa laga joojiyey dhibaatada waa la soo afjaray adduunka isqabsada gacmaha iska daaya dhibaatada mustaqbalkiina ka fikra dadagna aga dacwaalay waxa la sheegay in ciidamo oo markaasi ka tirsan beesha Carab inay u diyaar garoobeen in markiisa aga dacwaalay la soo gaaro in ciidamada Liiyo Booliska weeraraan waliba ay carqaladeeyaan nabadda halkaas ka soo maxalla carfayso oo la doonayo in lagu nabadeeyo deegaanka oo rag fara badan oo markaasi kamid yahay dowlad deegaanka hoggaanka amniga iyo rag kale fara badan inay yimaadaan ayaa laga yaabaa dacwaale halkaas waxay doonayaan marka inay xabad dhac ka bilaabaan marka ka bilaabaan odayaashii wixii dhanka lahada dhacayo xabadii bilaawatay odayaashii waa la xirxiri doonaa dhibaata halkaas ka dhici doona haddaysan ka waantoobin weerarkaas odayaasha nabadeynta wado xabadda ay ku bilaabi rabaan waxay doonayaan inay carqaladeeyaan nabadii halkaas kasoo socotay diyaargarow dagaal ayaa halkaas ka socda aaga dacwaalay waan ka digaynaa ciidamo beesha Carab ayaa ku diyaargaroobay dagaalna rabo markii guddiga la iska soo xulay ee doonaya inay halkaas nabadeen soo indhandhayaan sida wax u dhaceen dadka xog wareystaan ay rabaan inay weer ku qaadaan arrintaas laga digtoonaan dhihi lahaa dagaalkan hala joojiyo beesha Carab halkaas dagaal ku qaadaysana waxaa leedahay dagaal ka joojiya nabadda wax walba ka fiican nabadda ay anfacayso waxa hormuudka u ah waa odayaashiini dagaal iyo saqaadin wiilashiina haddaba u sheegay ma fiicno dagaal in markaasi ayadoo nabadeen la wado odayaashina wanaag wadaan in laga hor istaago dagaal galo wixii kasoo kordho halkaan ku soo gudbida barnaamij shirkareed meel fogaarsiin inta barnaamijkan barnaamij lagu doono fi amaan